إلهي حدود في عن هدان ليا لأنه نولش أدون كوينو معانا ما تدك ودن وحيلي نولش وفهم لا نهي نولش وحنو فهم لا نهي وامحي حدودك إنك إلهي نود حيي بمشى كبحي حدودك هدان هجاجي سنو نولش أدون كن يتأخر إلهي بنو هجاجين إلهي بقرآن كيسي نوغش يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغى إلهي كعب صدا أمورتي سؤال وحنا كدجنا فضيد من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يقولي قفك همجي سكدج الدنيا وحو كفكر يا والدنيا وحو كشغينا يا والدنيا وحو كصيحنا يا والدنيا وحو كسوكع يا والدنيا وحو كهلا يا والدنيا وحو إيجا يا والدنيا qofka hamigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nabigu yiri arrimihiisa oo dhan ilaahay bariye galbeed buu kaga kala sheedinaya nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saaraya faqri waligaana ka baxay baa labada indhood loo saaraya arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kala ma helo rasuulku yiri waman kanat al-akhiratu hammuhu ninka hamigiisa ka dhiga buu nabigu aakhiro macnaheedu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya صلاتي بو إلالينيا صونكي بو إلالينيا حقي دتكو سكي إلالينيا حقي جاركي سو إلالينيا حق دتكو لنو ليهي بو سكي إلالينيا دنبيغو ير إلالينيا وناقي أيو كشقينيا هميغي سو آخرو عمل آخرة دي سكرنا وعيا وكدكتون يحي عمل آخرة دي سبدبادين ينا وديران يهو قبانا يا مر والبا نك هميغي سكردق بو نبيغو آخرو قلبيغي سا إلهي كردق غني هضن تنمى قلبك إلهي سياه قفكم ماشي وكان نقضى عيدنا وقلبك ماشي غني كان نقضى أنا وهالكي وقلبكم يقول عن مدن هبل ونن مليون ديرة ورقضها ماها واحد بن آذن كقلبك يسا غنى ذا قلنا يا غنى ذا قلبك وحق ليا وأمرك قلبك وجست إلهي معرفة دي سي آخر ذا وين كده همي يسا نك كدك أبو نبي قد آخره قلبك إلهي هضن تنمى وقبو حياه أرميه صورنا إلهي بس قصة أوريا أدويدنا يدو دليسن أو أسن دليسن أي هوست ما داب رسولك يقول أدويد مؤمن كوي دون هاركا ما أدو كدب السعداء مثلا دب السعداء يا سيأكل دب السعداء هارك أدويد بالي قفك أدويد واسطة هاركا أدويد دين تيلا السعداء أدويد آخرة دب السعداء هذا ترى الدنيا أيان وجسن وآخرة دي بكج جسن وحال لمتها نين يري هاركي أيان سوق بنايا ما سوق بنكريست ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يقول ما هلو قفك هم يجلس الدنيا كدقة ما هلا بالنبي يقول إلا وحي إلهي وقدر ما نوحك لا ما هلو marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay ka gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin waxaad noqotaa bay yiraahdeen culimadu sida doonta waxa loo isticmaalaa bariga mise badda maxaa laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxa saaranba way qarriqmi sooma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin hadday adduunyadu qalbiga ay ka gasho adiga iyo waxa ku saaranba wad dagiyo ugu dad badan ba maanta way dageen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu maal qabeen buuha ninka ummadda ugu khayr badan buuha Abdurrahman bin Auf maal qabeen buuha tobankii jannada loo bishaareeyayna ka mid buuha Uthman bin Affan maal qabeen buuha tobankii jannada loo bishaareeyayna ka mid buuha Jarir bin Abdullah al-Bajali ogaas buuha ajil saxaabada Nabi Muhammad raga ugu qiimo badan buuha saxaabada rasuulku
tujaar bay lahaayeen, cuqaal bay lahaayeen, shucaraa bay lahaayeen, dhakhtarray lahaayeen, umaraa bay lahaayeen, fuqaraa bay lahaayeen, mucallimiin bay lahaayeen, culamay lahaayeen, ogaasyay lahaayeen. laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xagga way ka wada sinaayeen iyagu, xagga way ka wada sinaayeen. kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen, si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen. cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay mataqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan, xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan, aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn. abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay wasalam. wuxuu ahaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi. alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay. cumar baa arkay ninkoo sii socda. kaale yaa ababakar ilaa ayna? wuxuu idhi de waa shaqo tegaya oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin, soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo. muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax, khaliifata rasuulillaah weeyaan. mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan, meesha ma soo dhigan isagu. innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay? ar muxuu socdaa? waa lacag fiican heshid, meelahana si fiican ha u jajabsatid. ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walba. iyagu sidaa ma ahayn. mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan. mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay, waa adeeg ummadeed, ummadday u adeegayaan. ilaahay ikhlaaska innakana hayna siiyo. abubakar uu yaabay, war ciyaalkayga reerkaygana ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule, anna kaa shuuraynaynay adu noqo, horta halkaa fadhiiso, ma haleelaysid haddee toole. waa la shuureeyey, waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan, neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan. 2 sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee, inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday. cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi. markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku wadaa jooji. wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxa adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina, dhulkaa iibiya, lacagta ka soo baxda dhulka 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi, intay nii soo hadhana ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi. cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay, war maxaad leedahay? aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiya halkee? baytalmaalka. oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku aad u qorteen oo reerka siinayay 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay. dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkayga lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo. cumar binu khadaab baa loo keenay. cumar uu ooyey. abubakr sidiiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tegay cumar. wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi, waadna daalisay buu ka yidhi. sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi. 2 sano iyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas. xukaamta zamankeenna ka warrama. waxaasi maxaa keenay? waa alla ka baq. ilaahay bay ka cabsanayeen, aakhiraday ku xisaabtamayeen. markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey, xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey. koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey, xaqii dadkana uu iska ilaaliyey. waa koogii faqiirka ahaa.
سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي محايك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سي كدر صديتري ولي بعيل كان آني قالي يدو هدام له أقو ساقا اسكاله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تأوي يا سعيد وطبعا كي جنة اللو بشاريين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور بركاسولي والله قاسو دعوه يا سعيدو ويا قاسو دعوه سلانتا أبا كاسو دعوه الدغضة وما حي قاسو دعوتي دول إيادو أيلادا هايباد قادة تيبي يلا ليه ومع العيال كأيضا له بركاسولي يا أمير المؤمنين أنوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوله دول أولهين تاكد دول أولهين نك الظلم كو قاتبوا نبي قيري مالك قيامة وحل لقو عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسلة لوقو حلو آيا قورت لو قلين اللورن دونا جيدو لكع لما نكعي كريو ما نو حديث كنبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولتها حق بني آدنين عن ظلم كو قاتم إلهو حدي يقبل أبوران يسبو يدي عندها كقاد حدلن أضو عندها كقاد موياني هل كان أي شيء قصي له قد البيودي قلك وقع كعي هقادة تبوليسية وإن دباش دم مركاسي أورنجرتي ويهبارك سعيد بايقول داعي ويهبارك سعيد بن زيد بايقول داعي أيضا إن دلو دلكي أي كل شيء قتي إسقط وريقي سو إن دلا أي عيالكي كل دعدي بره عيالكي بكل دعدي لقى ما بسوا سارين هالكي بقبري لقى دقول لقواس حق بني آدم كعيار ما أنو النبي محمد كم مغلي تاك إن لأجو دول حق الناس نيكا قردركو قاتا تضبط دول باقيامها قورت اللوجلية أو لقو يرادا لك عوجيد لما نكعي كربو النبي يقولوا مجيدي كرايو ما أنو حديث كنبي محمد كم مغلي ما يقولها عثمان وين دول بني آدم حق درك كقادا إلهه هذا يقول بين أبورنا يسيبون دهنا كقاد هل كان إله كد البيوت أحسوا الله كبق وحبنا آدم كحقه كحاجه جنيه ومحي والله كبق مركز إلهي كو حساب تميسين وكو أركايو وكو مغلايو آخر إن يجرتنا يكو هرتالو حق بني آدم إن أبدا كو ديرن ميسيد لكن قور موقفك بني آدم كو إلهي إنه ظلم كقلا بني آدم كان ظلم كقلا وأمركو إلهي اللوبو آخرنا وخطك كسارو سادرت يدول على يال إلهي إنها نصر نقولنا توبت كأنه إن يربان الديود جوجنا إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بري تولي نوال بوحة ولا كل مدونة كما ورقبو ماشى قبرقاق ونقون كما ورقبنو بركة ولا الوين عن آخرك حسابتنا آخره مديرو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بأشيء قيامه مديرو حقنا وكادر يهي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارين توازدود هي بعثت أنا والساعة كهاتين لو ذا فرض النبي قسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد حدا ابو النبي قسكو قبتي مرك ابو النبي يري أنا يا ساعة قيامته سدا لو ذا فرض اسكو خيغان بان اسكو خيغنا ابو رسولك يري مرك إلهي نحن سو نقنو هكبغنا إلهي قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دينتي إننا ما ركتاني هنكشقينو وشقد دينته علماء يا معلمين توكلية كمسؤول ما هنا يا جماعة عدده قف كستو مسلم الدين تنحلبك كسارا إن النفط هذا إصلاح صح وواجب إن أمد إصلاح يجينا ددالك أتكقب قادتنا وواجب دعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء دتكو إلهي حقي صلى الله عليه وسلم وفريضة شرعية ويان وانا ضرورة بشرية ودما مات دعوة أوباهن مسلم كيف أوباهن إن صلاة الله يجيرو
oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo. gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay. mas-uuliyaddana xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiqa shaahid minkum alghaa'ib. aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambaysee kiina xaadirka ee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii. fa ruba muballaqin awcaa min saamicin. iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunkao dhan gaadhsiiyeen. halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta. insha allah innaguna in diinteenaan ka shaqayno wada niyooda insha allah. dad badan oo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona sa u ducayn mayno insha allah. dembigeenna allaha dhaaf, dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf, diinta allah inoo macaneeyo, maralkeenna allaha shaafiyo, mowtaadkeenna allaha u naxariisto, amni iimaanka allah inoo siyaadiyo, daacadda allah inoo macaneeyo, dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba allah inoo hadeeyo, madaxdeennana wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada allaha tuso, muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo, nin walba alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado. dad badanoo xaadiriinaya kuwa qaybinoo duca dalbay baa jire, mid walba alluu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbadda ilaahu ka qaad, caafimaad sariica ilaahu sii, khaatimada ilaahu noo hagaaji. waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban, yaa allah noo naxariiso. haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan, haddaad noo dembi dhaafin ayaa noo dembi dhaafi. amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.